الرحمن الرحيم مقعد ددوينها Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxkamadda Gobolka Banaadir qaybta qaabta laanta caadiga maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha 9 2024 Maxkamadda Gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradii 3aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 570 iyo 523 kaasoo eedeysanaya leeyahay kow حسن عثمان آدن إن اللول حسن علي دشاي كودي بيش كوبات كون سجال بقول تضبطي كل دش قريولي دجوابري لابو فاطمة حسن عثمان إن آمين عبد الله نور لالتاي كودي بيش شنا لابو كون سجال بقول سجاشن يسديدي كل لا تحمر دجمد وابري سد حسن أويس قاسم إن آمين حسين أبو كر لالتاي كون سجال بقول تضبطن كي كل لالتاي حمر دجمد وابري أفر آمين عبد الله أبو نور إن حاو عمر حسن لاتay koodi bishii koobaad 1985 ku dhalatay xamar degmada Waaberi kuna wada eedeysan qodobada 221 faqrada labaad lala akhriyo 7 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka kortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada iyo qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka 8aad ee xeerka kortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada xeer lambar 1 soo baxay 22 bishii 2016 xukunka maxkamadda gobolka Banaadir si waafaqsan qodobka 120 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay kow Dembiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 221 faqradiisa labaad lala akhriyo 7 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga labo waxay sidoo kale Dembiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka hortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 saddex waxay sidoo kale Dembiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 3aad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka hortaga lacag dhaqidii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 Mareykanka ah wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa 13 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000 afar waxay eedeysana Faaduma Xasan Cusmaan kuweyda faldambiyeedka ku xusan qodobka 221 faqradiisa labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed la akhriyo 7 sidoo kale waxay eedeysana Faaduma Xasan Cusmaan kuweyda faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada saddex waxay Dembiile Faaduma Xasan Cusmaan ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedeysana Xasano Awees Qaasim kuweyda faldambiyeedka ku xusan qodobka 221 faqrada labaad lala akhriyo 7 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxay kuweyda faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka ka hortagga waxay Dembiile Xasano Awees Qaasim ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 3aad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedeysana Aamina Cabdullaahi Abanuur kuweyda faldambiyeedka ku xusan qodobka 221 ee lala akhriyo 221 faqradiisa labaad la akhriyo 7 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay sidoo kale kuweyda Aamino Cabdullaahi Abanuur faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad lala akhriyo qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka ka hortagga waxay Dembiile Aamina Cabdullaahi Abanuur ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 3aad oo lala akhriyo qodobka 8aad ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku sameeyay sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha 9 2024 billahi tawfiiq